الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى أي نعمة أولاً إسكاله shukrigeeda iyo mahadcelinteedana isaga iskale rabbi tabaaraka wa tacaala allah mar walba inoogu deeqay deeq badan iyo nicmooyin fara badan oo inaan tiro koobi kareynin mar badan ina soo gaarsiiyay fursado badan oo la tiro koobi kareynin inaan siiyay waxaynu ku dhex jirnaa bilihii sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee mudnaanta lahaa afartii bilood ee ilaahay tabaaraka wa tacaala labiyo tobanka bilood ee sanadka uu mudnaanta ka siiyey ina ciddata ashuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illah sanadka bilihiisu waa 12 bilood sidaasuuna ilaahay qoray maalinkuu samaawaadkiiyo dhulalka abuuray ayuu u qaybiyey sidaa u qaybiyey 12 bilood sanadkii 12 bilood waxaa ku jirto alla yidhi 4 bilood oo mudnaan khaas leh 4 bilood dhexdooda ku jirna 4 bilood ee mudnaanta lahaa oo rabbigeen ina yidhi tabaaraka wa tacaala dhexdooda dulmi ha sameynina diinta toosanna waa taasuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala bilahaas xurmada leh ee mudnaanta leh taacada iyo khayrka in lagu dadaalo xumaanta iyo dambiyada iyo macaasida iyo dulmigana laga fogaado maxaa yeelay khayrka lala yimaadana waa labanlaaban yahay dembiga la galana sidoo kale waa ka culus yahay xilliyada kale dembiyada la galo marka waxa weeye inaad foojignaato oo taxadartay u baahan tahay dadaal la timaado bilahaasi isku mid maaha iyagoo afartooduba mudnaan khaas ah ay leeyihiin haddana iyagaa sii kala mudnaan badan iyagaa sii kala fadli badan bishan fooda inugu soo haysa oo bisha dilxija ah ayaa mudnaan khaasa leh waa bisha ay acmaasha khayrku isu tagaan hadday tahay soonkii iyo hadduu yahay salaadii iyo hadday tahay sadaqadii iyo hadday tahay xajkii iyo hadday tahay cumradii acmaasha khayrka isugu timaada sidaas daradeed baa mudnaan khaas ah waxa la siiyay bisha 10 bariye hore ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mudnaan khaas siiyay waxa ku tusay inay mudnaan khaas leeyihiin rabbigeen baa ku dhaartay tabaaraka wa tacaala oo alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wal fajri wa layaalin 10 فجر كان كودا شيء واجا بريجيسان كودا رتيب ربي يدي إيه هبينة طبعا مفسرين توحي إليهم بدن كود هبينة دا طبعا وطبعا كهبينة بشا ذي الحجة أو بشا عرفوه الرئيس واي ألنا الشيء هدو كودا رتو وحو كودا رتيب وقبا بلاش مخلوقات ككلا وقلمصوا بحين أو منانتا ومسينين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وسيعدي منانت أي طبنكا هورليدا هاي وحديث البخاري صار من حديث عبد الله بن عباس أي النبي وحليه صلى الله عليه وآله وسلم مجران مالمو عمل وناكسن الله سمايا ألا وكتش عليه طبنكا بري عماش الله سمايا عمل إلا سمايا إله لو قول ولا ذو وناكسن عمل صالحة wuxuu ilaahay ugu jecel yahay 10 bari ee bisha dilxija u horeysa wixii la sameeyo khayr iyo amal saalixa markuu nabigu sidaa yiri sallallahu alayhi wasallam asxaabta iyo ardadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay dhageysanaysay waxa agtooda muqarrar ka ahay horay u ogaayeen acmaasha ilaahay loogu dhawaaday inuu jihaadku ugu fadli badan yahay markuu nabigu yiri amal ka fadli badan ma jiro saalixa halka su'aal baa timid marka waxay weydiiyeen rasuulka xataa jihaad kamiya xataa jihaad ilaahay jidkiisa lagu jihaado oo ruuxu naftiisa iyo xoolihiisa geeyo oo fulinta galo
حتى عمل كما وحا كفضل بدن طبعا كان بريء عمل صالح لا يماد مركز النبي صلى الله عليه وسلم ها إلا هل مدمويه هل نوع جهادك كم ذا هو النوع النبي صلى الله عليه وسلم نبحي أما الروح بحي أو نفتي سي حوريه سي بفقرين تجي أو أن نفنا الله صون نقونين حولنا الله صون نقونين حوليه سي نجد كإله بيكتجين نفتي سي عقوق على السنة إله درتي ويبحث كاس مويه وحي كلا جهاد كالنوع يدي سكلا وحكفض بدم النبي صلى الله عليه وسلم ما المهن طبنك عمل كلا سمية صالحة صلوات ربي والسلام عليه سيداس درادد أيا وحلقة مارمانا إنهم فرصتك فايديسن الله تبارك وتعالى في سورة الحج وكأنه وشيغي ددك بيتكي ستغي عماشة أتغي وحيالها أقوى وين إلهي لي مادان ومالمهن وعباداء وحا كمدا إن إلهي حسان تبارك وتعالى مالمها إيغا ويذكر الله في أيام معلومات ومالمها طبعا كبيشة أهرية marka inaynu fursada ka faa'iideysano maalmaha inaga xiga ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad ha inagu gaarsiiyo inaynu marka waxa way u diyaar garowno mashquulka batay adduunyadii baa dadkii qaadatay awqaadii fadliga badnayd waxay ina maraysaa ina dhaafaysaa inagoo moog oon ka warhaynin oo mashquulsan fursad weyn baa halka inagu dhaafayso fursad aakhira ganacsi aakhira inagu dhaafaya inaynu marka u diyaar garano ka faa'iideysano acmaasha saalixa ah ee nabigeenu amaanay sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulku haduu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka isaga al-amalu salih amalka saalixa haduu yiri nabigu ma kala qaadin sallallahu alayhi wasallam waxa soo galaya amal kasta oo ilaahay loogu dhawaado tabaaraka wa tacaala bi sharti an yakuna salihan waxa sharti inuu amalkaasi yahay amal salih salih goormuu noqdaa amalku عملك وحو صالح نقضى أو عمل ونكسره إلهي أقبل النقضى مركي عدة سمين ساء مؤمن إلهي الرميسية يمان انت آخره طلباتنا وحوي مركو إلهي درتي أولتشي ذا عمل كانوا ضنك لأوسن كالأهين تصدحاتنا وحوي مركو عمل كأوسمين يو والنبي محمد كقضيده صلوات ربي والسلام عليه أو السنة دي الرسول كوافق سيهي عمل كستو صالح عمل كستو صالح مركا وحا سو غليا قرانك اخرسكيسي وحا سو غليا صلاديه كوي سنده اها كوي واجبك اها وحا سو غليا صونكي كي سنه اها iyo waajib la qaleeyay iyo nadarkii amal saalixa وحا سو غليا صدقدي iyo ihsaankii iyo samafalkii وحا سو غليا عمل كستو حا سو غليا الهي ذكريgiisa iyo xusidiisa soo galaya amal saalixa nabigu ma kala qaadin salawaatu rabbi wa salaam alayhi waajiran waxyaalaha qaar kood oo mudnaan khaas nabigu uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam mudnaan khaas leh sida mesela dhikrigo kale xadiidka ahmed waxa soo saaray min xadiid abdullah ibn umar nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma jiro maalmo ilaahay agtiisa kaga weyn عمل الله سمينا وكتشعر يهي مالمهن توبنك محن سمينا مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد بديسان لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله إلهي ذكرك سبدي أبو النبي صلى الله عليه وسلم عرب كاغو إنو قوينيها إلهي ذكرك سوحيو وانا وحيابها إلهي تبارك وتعالى إنو تشدي إنو دويني الله ينحريستي سير رضيه سوحيا لها أقف ضدواي لأن كوما ديدايو وقتنا مالي كوما ديداي إن الدنيا دادا كل حوضتو أديغو جوغا دوكانكاغا أديغو حفيزكاغا فرديا أدو جيدكا مريا أدو غاريغا ودا أدو غوريغاغا جوغا أدو جيكادا كجيرا أياد عربكاغا إلهي كحسي كرتا تبارك وتعالى أساقو سا أفضد أيها هدنا إلهي تبارك وتعالى وحكو تلمامي عمل آدي آد جليل وين مؤمنين تنا إلهي وحكو تلمامي إني إلهي آد حسان رقي دمر با والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بل القرآن كريم كالذكر مشكو بعد انت بدن وحال الراعية كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بديع عمل إلهي لو قلنا هذا كأقدر أجسر رأيه وقلنا طهارة بدن إلهي أكتي سنة أقو قيمة بدن بو كم دي هاي ما المهن مركب منان خاص ذكر قوليه النبي قلت المامي صلوات ربي والسلام عليه وحكم إذا الصنكة
oo tobanka beri maalinka tobnaadi waa maalinka ciidda ah isaga lama soomi karo laakiin sagaalka ka horeeyaba soonku waa mashruuc camalka saalix uu galayaa maalinka sagaalaadna waa maalinkii carafo oo mudnaan khaas ah ayuu leeyahay soonkeedu uu leeyahay gaar ahaan dadka aan xajka aadin waa maalin weyn maalinka carafo oo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo iyadana mudnaan khaas ah quraanka kariimka allah tabaaraka wa taala nicmo uu ina siiyo waxa ugu qaalisan oo ugu qiimo badan kitaabkan uu inoo soo dejiyay inoo dhammaystiray maalinkii la dhammaystirayna waxay ahayd maalin carafo ilaahay kitaabkiisa u dhammaystiray waxa tilmaamaya xadiidka bukhari iyo muslim ku yimid min xadiid umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa ni yahuudiya u yimid umar markaas wuxuu ku yiri ya amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyo aayad kitaabkiina ku jirta haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayd umar wuxuu ku yiri waa aayade wuxuu yiri waa aayada al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina al-yawma akmaltu lakum diinakum ma antan diintiini idin dhamaystiray wa atmamtu alaykum ni'mati ni'madaydiina korkiinaan ku dhamaystiray ku taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raali idinka noqday aayadaasi haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinka mudnaan khaasan siin lahayd umar wuxuu yiri waan garanayaa maalinkay soo degtay iyo meeshii ku soo degtay waxay soo degtay buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo carafa taagan maalinkuna maalin jumca uu yahay ayay nabiga ku soo degtay buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabcan wa hajjatul wadaa wa hajki nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay umada uu ku sagootiyay waay markuu hajka ka laabtay nabigu sallallahu alayhi wasallam 8 bari waxaan 3 sano dhanay waxaan 3 bilood dhanayn buu nabigu sii noolaa sallallahu alayhi wasallam yaani waxay tilmaamaysaa muhiimadii nabigu uu dhulka u joogay inay soo gabagabowday oo waxay kamid tahay ayadaha tilmaamaya geeridii nabi maxamed inay soo dhawaatay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hal yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum wa maalin ciida wa maalin jumca oo jumcadu waa ciida usbuuca muslimiinta waa marka labaad maalinta carafa qaarahan gelinkeeda dambe waxa lagu tiriyaa ciida lagu tiriyaa maalin weyn bay marka soo degtay maalinkaasi marka mudnaan khaas u leeyahay waa maalin ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u dambi dhaafo khalaa'iqda in aan tirsanayn oon tiro lahayn oo aan tirin karayn ilaahay u dambi dhaafaa waa maalin dadka carafa taagan ee xujayda ah rabbi tabaaraka wa tacaala uu malaa'iktiisa ugu faano yiraahdo fiiriya waa maalin weyn innaga dadka aan xajka aadinna waxa sunno oo loo jideeyay maalinka inay soomaan oo nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalinta carafa soonkeeda allah waxaan kaga rajaynayaa inuu sanadkii ka horeeyayna ku dhaafo dambigii la galay sanadka soo socday ka dambeeyana inuu dambigii la galo ku dhaafo marka sagaalka bariba wada soomi kartaa maalinkaasina mudnaan khaas u siilay soonku marka cibaadaadka waa weyn waxa kamida nafaqada iyo ihsaanka iyo samafalka kamida oo mar walba amal jaliilo ilaahi loogu dhawaada oo acmaal fara badan oo qaasiro ruuxa ku eg ka fadli badan waa nafci mutaaddi oo gudbaya waay inaad marka waxa weeye hadiiba ilaahi wax ku siiyay maalmaha iyaga gacantaada aad furto sadaqada aad u badato khasnada wax badan aad gashato adiga dantaada iyo maslaxadaada weeye waliba munaasabada ay ku soo hagaagayso wax weeye ummadii oo faqri iyo gaajo iyo abaaro iyo macaluul u baaba'aya waa munaasabad weyn oo cidii ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa inay wax dhigato doonaysay heli karto awoodeedii leh ilaahay tabaaraka wa tacaala fursad uu siiyay wax in marka wax way gacanta aad furto wax sadaqaysato waxaad heli karto qaraabada xidhiidhiso gacantaadu furnaato wax sadaqaysato acmaasha waa weyn ilaahay loogu dhawaaday kamid al-amalu saalih dhikriga ilaahay khayraadka wanaagaasi wax alla waxaad gaari karto ha yaraysanin وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صحيح قاتب الله تبارك وتعالى صحيح لقات وحا أغفي عن الله كعبسك طاعة إنات صحيح قادته خيرات كأت صحيح قادته مدول بوح كدر ستوت كيهلته خير كوبته
si aad mustaqbalkaaga ilaahay agtiisa wax weyn uga hesho fursadeedii baa ina hortaala maalma inaga xiga ilaahay hayna gaarsiiyo oo tabaaraka wa tacaala haynagu sime waxa la doonayaa inaynan fursadaasi si fudud iyo inagoo mashquulsan iyo inagoo moog inaysan ina dhaafin ee aynu ka faa'iideysano biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم يا قوي يا قهار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك